diblomaasi hore Mareykanka ayaa doonayay in Itoobiya ay u adeegsato saameynteeda sidii wadanka ay dariska yihiin ee Eritrea looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka. Bishii September Itoobiya waxa madaxay u tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaanay ka mid noqotay bishii January ee sanadkani kadib markii sanadkii hore ay ku guuleysatay kursi aan joogto ahayn muddo 2 sano. danjirihii hore marna ahaana kaaliyay xogayaha amuraha dibadda ee qaaradda Afrika Herman Cohen ayaa waxa uu soo jeediyay in tallaabadaasi Itoobiya ay hore u qaado cunaqabatayn Mareykanku soo diyaariyay ayaa lagu soo rogay Eritrea sababtuna waxay ahayd inay taageerto kooxda ka jirta Soomaaliya Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida laakiinse waxay ku celcelisay oo beenisay in xiriir ay la leedahay kooxdaasi. Cohen waxa uu sheegay in cunaqabataynta saaran Eritrea muddada 10 sano ay tahay mid dheer hadalkiisana waxa uu riyaaqay wakiilka Eritrea u qaabilsan qaramada midoobay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Eritrea Saalax Cusmaan oo ka hadlayay fadhigii 22aad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in hadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qaado cunaqabataynta cadaalad darrada ee muddada 9 sano saarnayd wadankiisa aanay jiri karin sabab cudurdaar loogu sameeyay inay sii socoto. Eritrea ayaa waxay Itoobiya ka goosatay sanadkii 1993 kadib dagaal soconayay muddo 30 sano intii u dhaxaysay sanadkii 1998 ilaa 2000 waxa dhacay dagaal dhex maray labada ciidan oo dhimasho badan sababay. 12 December magaalada Algiers ee wadanka Algeria waxa heshiis ku kala saxiixday ra'iisul wasaarihii geeriyooday ee Itoobiya Meles Zenawi iyo madaxweyne Isaias Afwerki iyadoo saxiixaasi goobjoog ay ka ahaayeen ururkii midnimada Afrika midowga Yurub qaramada midoobay iyo Mareykanku. Itoobiya waxay ku eedeysay wadanka Eritrea rabshado soconayay intii u dhaxaysay sanadii 2015 ilaa 2016 laakiin Asmara ayaa beenisay eedeymahaasi. Labada wadan oo colaadoodu ay soconaysay muddo dheer ayaa diblomaasiyiintu waxay sheegayaan inay jiraan isu soo dhawaansho iyo isafgarad laga gaari karo arrimaha qaar.